لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى ذنوب تلقى وحاقوا علوس shirkiga kadibna waxaa soo raaca dhiig la daadiyo oo xaq darro lagu daadiyo. sidaasi waa sida ay yiraahdeen a'immada Imam Shaafici iyo ninka la yiraahdo Ibn Hazmi ayagoo ka qaadanaya Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam. dambi ma jiro ka weyn gaalnimo kadib laba qodob: salaad kas looga tago ilaa waqtigeedii dhabcado oo buuxo, iyo naf mu'min ah oo kas loo diro xaq darrana lagu dilo. bacda shirki dambi ka weyn ma jiro. rabbigeena tabaaraka wa tacaala meel cad uu masalada saaray. goodiga ugu adag ee quraanka ku soo aroorayna wuu ku sheegay: ruuxi ruux mu'mina dilo kas u dila abaalkiisu waa jahannama, waana ku waaraya. allana waa u cadhooday, waana lacnaday, cadaab weyna waa u diyaariyey. nabigeenna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi: ruuxa mu'minka diintiisa inuu waasacnimo kaga sugan yahay ka zuuli maayo intuusan dhiig xaaraama gelin. dhiig xaaraama markuu galo diinkiisii waa cidhiidhiyamayaa, waasacnimadiibuu waayayaa, xaalad khatara iyo cidhiidhi buu gelayaa xagga diinta. arrintuna waxa weeye sida nabigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh: hal ruux oo mu'min oo xaq darro lagu dilo ayaa ilaahay agtiisa kala weyn in ay adduunyadu baaba'do oy zuusho. adduunyadan samaawaadkeeda iyo dhulalkeeda iyo badaheeda iyo buuraheedu inay baaba'do baa ilaahay kala fudud hal ruux oo mu'mina dilkiisa. waxaa yeelay mu'minku waa ka xaq weyn yahay ilaahay agtiisana waa ka karaamo badan yahay adduunyada oo dhan. xataa kacbada sida xadiidka nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam, xataa kacbada waxaa ka qiimo badan ruuxa mu'minka ah. maanta kacba la dumiyey, nin kacbada tegay oo dumiyey xaalkiisu inalama fududaadeen. laakiin ninka boqolka naf ee mu'mina isu maray cagta mariyey warkiisu waa fudud yahay. allah tabaaraka wa tacaala naf mu'minada agtiisa kuma fududa. malaa'igta markuu rabbi ku yidhi waxaan abuurayaa dhulka, waxaan ku abuurayaa addoommo kuway ah oo u kala dambeeyo maamula ibni aadamka laga hadlayaa, ayay malaa'igtu waxay yidhaahdeen: atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku addimaa. rabbiyow, dhulka ma waxaad yeelaysaa cid fasaadisa oo dhiigga daadisa? malaa'igtu u fiirso, dunuubtii kaloo dhan mayna sheegin, laakiin ibni aadam waxay ku eedaysay oy ku sheegtay dhiig buu daadin doonaaye seebaad dhulka u keenaysa? ma waxaasaad rabbiyow dhulka keeni dhiig la daadiyo? sidaas daraaddeed baa maalinta qiyaamada xisaabta rabbi maxkamadda waxa ugu horreeyo oo dadka lagu kala saari doono dhiigga u horreeya. intaan fayl kale la furin oo diiwaan kale la furin oo wax kale xisaabtooda la qaadin, dhiigga ugu horeeya awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati dimaa. dhiigguma sahlana. ruuxa mu'minka ilaahay rumaysanee qalbigiisa wax yaroo iimaana ku jiro, ruux muslim ah dilkiisa xataa kelima niskeed, xataa hal xaraf kagama qayb qaato. waa ka cararaa, waa ka ixtiraasaa, waa iska ilaaliyaa, waa iska jiraa, waa ka dhowrsadaa. leanna waxa weeyaan waa meel halis ah, ruux galayna kama baxo. sida asarka cabdillaahi ibni cumar uu tilmaamayo, ruux galay kama baxo, kamana bixi karo. bal waxaa dhacaysa marka aad dhiig daadiso, allah tabaaraka wa tacaala wuxuu kugu imtixaanayaa dhiiggaasi inuu kuu jiido dhiigag fara badan, oy markaa kuu fududaato inaad dhiigga cabto ood bada dhiig ajiidho oodan u aaba yeelin waxaad samaynayso. waxay ka dhalatay dembi aad gashay nataa'ijtiisa waay.
arrintu waxay u baahan tahay dadka muslimiinta khaasatan ummadan aan luuqadeeda ku hadlayay ee ibtilowday ee intaas sano dhiigeeda daadinaysa ee jaraa'imta galaysa xagee loo tagi doonaa soo Allah maxkamadiisa la tagi maayo tabaaraka wa tacaala maxaa samayn doontaa rabbiga marka intaad hor tagto khalaa'iqdii aad ka qayb qaadatay layntooda qabiil baad ku laysay urur baad ku laysay fikir khaldan baad ku dishay rabbiga tabaaraka wa tacaala hortiisa intay kugu dhagaan ay yiraahdaan rabbiyow waa ka kiina dilay weydii muxuu noo dilay war maxaad u dishay jawaab ma leh وما واحد جواب له هلي كرا روح مسلم ولا دلمية إلهي أكتس جواب له هلي كرا جواب ماله وحيابها ضعية وواحد لوجنا وأنا واحد لقى مرجوده وأنا واحد لقى يقصده حالته سواحي سي أذكته مركز جرائم تنوع عصر لجوس سماينا يوم مجع جهاد مركز لجوس سماينا يوم مجع دين إلهي بالله نصرينا يا marka lagu sameeyo kitaab ilaahay baa dhulka lala rabaa inuu xukumo marka magacaasi la isticmaalayo bay xaaladu si adag tahay maxaa yeelay dadkii diintii baa la isku diri oo jihaadkii baa magaciisa lagu ciyaaray oo muslimiintii iyo fariidada baa la isku diri oo gaaladii baa lagaga qoslin oo lagaga farxinaya kullu dalika mafaasid isa saaran weeye soo ceeb weyn ma adigoo muslim ah dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo oo sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yiraahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayo dareemayo inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalan baabiye murtadiin baan baabiye oo ummadii ku tumato إلهي بان إذن كل أريه سورة نوعية بيوتالله مساسا جهادا متاسا قال الله دقالنا متاسا وضن حرينا متاسا معوها خير وناك يقول له دونيا أبدا أبدا سورة قبيحة حد سوغاني ثان واحد دعميه ويصهر مرته تاريخ ذا مركز ديب له آخريو فكر كان منحرف كأه إن دي جو أبيالين meel alla meeshuu arkaba dhiig cabay daaqaya fikirka noocani saalixiinta iyo caruurta iyo dumarka iyo dadweynaha aan dan ka lahayn fikirkaasi hadana ku faanaya hadda ma aha markaad akhrido kutubta taariikhda iyo siirada Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu khaliifkii raashidka ahaa raggii islaamka qaaday raggii ugu horeeyay buu kamid ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhiisii buu qabay ilmaadeerna way ahaayeen asagoo nool buu nabigu jannada ugu bishaareeyay saabiqiintii buu kamid yahay afarta saxaabada ugu fadli badan ninba dhiigiisa xalaashaday islaamnimo iyo jihaadna ku xalaashaday ninkaasi wuxuu ka tirsanaa qolada la yiraahdo khawaarijta Ali ibn Abi Talib oo salaada u soo baxay intuu u yimid ومدح كدفت سجينين كلا علي مركو دعي أيوه وحو كيري كدل أخري علي ويا له وحول علي وحكم كإلهي بإسكاله أذوقنا ملهد صاحب بدانا ملء حكم كإلهي بإسكاله محوك وضع كتاب كإلهي بإسكاله حتى والرقبة رأي قوضة قاضتي حكمك إلهي بإسكاله أننا وحن كود لينا دين ربي إن سعل إن كتاب إلهي ندلك كحكم حكمك إلهي بإسكاله هذه الرقاق مله دين عليو مرقاسو أخريي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ضدك وحا كمذا روح نفتي سإلهي كقضي رضيه سيسقر راديني وحن كود لي عليو شنان كوربا رضا إلهي كقدونيا waxaan rabaa dhiigaaga inaan janno ku galo Allahu akbar ma ali baa dhiigiisa janno lagu gali ma ali baa dhiigiisa kitaab ilaahi lagu koryeeli ma ali ibn Abi Talib baa dhiigiisa nusra iyo dawlad islaam lagu dhalin fikir ajiib ah markaas mid dib ka yimid oo ragga fikradda xambaarsanaa aba amaanay wuxuu leeyahay ninka duridda sameeyay ee ali duray taqi ilaahay ka baqayo aha
durida iyo dhibka uu geystayna jannu ku raadinayay ilaahayna ridu kaga helay marar badan baan xusuusan buuri ninkii nooca ahaa markaasa waxaan leeyahay buuri ilaahay agtiisa adoomada midka ugu miisaan culus buu noqon doonaa ya kariim ma absha'a suura aadu falxuwa ومع ذلك رغبا جنة ku raadsanay Ali ibn Abi Talib dilkiisa hadii janno lagu raadsanayay Soomaali layntooda in janno lagu raadsado maxaad ula yaabi marka Ali baa janno lagu doontay fikirku mar haduu qalloocdo oo uu jidka ka baydo halis waay waxaan idin leeyahay waxa noocaas oo kala in diin loo tiiriyo waa khalad in kitaab Ilaahi loo tiiriyo waa khalad in jihaad magaciisa la siiyo waa khalad in la taageero waa khalad in laga bari noqdana waa waajib nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saxaabigiisa Khalid ibn al-Walid oo intuu ta'wiil sameeyay dad si khalada u dilay ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid ilahu bari baan ka ahay kumana jiro kamidna may Khalid wuxuu sameeyay bari baan ka ahay Khalid uu ijtihaaday dadaal bayna ka ahay khayr doon buu ahaa naam maanta ina tunka saarato difaacdo oo waxa noocaas oo kala u doodo wala tujadil an alladina yahtanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana khawanan athima waxa noocaas oo kala looma doodo lamana difaaco waa laga bari noqda haddaad ka bari noqon weyday kula qumanaato waxaad ogaanaysaa hal qodob nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam gafka marka la sameeyo oo dhulka lagu sameeyo ninka goobta jooga ee nacab ee aan doonaynin wuxuu la mid yahay sidii ruux ka maqan oo kale ruuxa goobta ka maqan laakiin raali ka ah waxa dhacayana sidii isagoo goob joogahayo sameeyay buu la mid yahay haddaad qaaradaha salkooda joogto oo waxa noocaas oo kale aad ku faraxsanto jihaad u haysato inay banaanta aad u haysato adigiyo midka galayba isku dambi baatiin ka soo amrayna idin la dambi way midka sheegtayna la dambi way waxa noocaas oo kale ah wax la tabriiriyo ama tunka la saarta ma aha dhiig muslim oo tumayaal ah oo boqolaal dhaawac oo dad gubtay ah oo dad dhuxuloobay ah oo ummad xataa indhahagu ayna qaban karaynina waxa noocaas oo kale ina tunka saarato ku faanto aaway iimaanki aaway diinti aaway akhlaaqdi insaanka caadiga ah baan sheegan karay ilaahay laga boqo tabaaraka wa tacaala meesha inuu ku socono meel sahlan ma inxiraafku meeshuu gaadhayna meel sahlan ma aha da'yarta iyo dhalinyarada waxaan u sheegayaa xamaaska iyo niyad wanaaga iyo jannadoonnimadu yaysan cadaab idin la gelin adoo jaahil waxba garanayn mid aan ku dhaaminba markaad u tagto oo uu ku yiraahdo khalqiga Allah jannaduna waa irida adiga janno waxa idin dhaxaya naftu inay ka dhacdo la oo aad haliishood iyo cadood jannada ku orado oo ay ku timaado wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun waxaad filanaysa waxaan ay kugu soo baxo meelaad ka noqoto male min dius ku tagtay rabbi baabaad hor tagtay janna meesha taala naar baa taala xisaab baa taala khalaa'iq aad laysay baa meesha taala ma waxa ku shafeecay hebel baa yam ma waxa wax ku daraysa ururkan ka tirsana ma waxa wax ku taraysa niyadaydu way fiicnayd ma waxa waxba ku tarimayso warkaasada oo tartiibsada oo hays halaagina oo ummadda halaagina oo Allah ka baqa tabaaraka wa ta'ala sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'anil sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهي قانين معناه وحلو لك أيوب آمن فيه وين قل من أيام مع ذلك وين يقانين عليك الدنيا لهايين ويقرن أيام مركز أرج
يعني dadka maanta jirana ribada noocaas ah ayaa leeyahay qaadan carabna sidii loo walaalay way ku difaacna qolad kasta dhaqaaladeena saas la yeelay dahab dalal islaam oo laan jirin inta la gaasay la yiri oo idinku ilaalina sootan daawo idin inta sun keenan oo qofka lagu daro oo lagu beelayo خلاص واحد ما قال لي عربه ان وهر اسكو داو سو كعay illa in kaar gawin suma dadada iga buuxiyeen subhanaka ya ilaah way ugu soo kacaan lugtiga ay bararka hadda way ku dadaaleen weligood inaadan gacantooda ka bixin weligood gacantooda ka bixin weli hadda weligaa joogtid maalin waxay ku siinayeen kaniin aad hurudid oo haddaadan kaniinigaas qaada aadan dib u hurdi doonin saa gacanta ku jirto maalin waxaa lagu siinaya kaniin lagu leeyahay kulaylku kaa daminaya dhowr maalmood bay ku roonaanaysaa kulay baa kugu kicin weligaa kulayl gacantooda ka bixin maalinba meeshay rabaan haye nimankuna wayna khayaaneene oo annagayna gateene geedihii aan nagin oo ay ka mid ahaayeen xabagta iyo waxa lamidkaa ayay inta noo dhoodhoobeen oo gobol sunna ugu soo dareen bay dhehen waa daawo ee daawo oo dhan gacanta islaamkay ku jirtaa malab baa yaalla xabadi soodaa taalla waxa yaalla subag la-ood caano la-ood baa taalla oo kulli lagu daawo ku sheegay mada aadan haye geedo badan oo daawaha kale yaalla khalaas laakin yaa raba waxaa leeyahay maye waxa daawada ku hormaray maraykanka maye daawo waxa ku hormaray jarmalka galbeedka ma taqaanaa biraha adduunka looga horeeyo inkaa qaba haddaan bilo looga horeeyo ninkaa ma taqaanaa wuxuu yahay waaba khaa-inka koowaad ayuu ku feero doonayso ma garanayso ninkaan rabbi ha laga bogo subxaana watacaala ilaa ay wax walba naga dhaadhiciyeen riban ayagana noo fasaxay bakti o dhan ayaana geliyey waxay yihahdeen lababa noolaan karo interest laanti haddaad inta tagto tira gaariga lacag kaashaan kaaga gadanaya kambaniga waa ku caayayaan dulli aan waxba gelinayn baa tahay lacagta meel kala gasho annaga ku gadayna iska bixi tarti tartiib danta laleeyahy waa maxay weligaa inaan boqolku kaa bixin baa la rabaa oo sanad kasta boqolku kuuqo weligaa adigu u shaqay kambaniga weligaa hal hameenna haku seexanayna sina fiican maxaa yeele qof dayn ku jira waaba gubanaya isaga dhan qof ribo qaatana kumasi jira waaba gubanba olol baa ku daran xaqiiqada nooca weeye dadkii ribada qaata waa dadka noocaasa buu yidhi oo halkaa buuxa rasuulka sala allahu alay slam waxaa loo sheegay rajulka suuradiisu ay dhibka badneed waxaa lagu yidhi waa maalikun kaasinu naar waa maaligii naarta furhayskeeda ahaa naarta ayuu furhayskeeda ahaa marka khaasinu jahanam weeye suuradiisa lama eegi ka naartaas iska sheeganaya ninkii dhirirka badnay oo beerta quruxda badan joogay nabi ibraahim ayuu ahay calayhi salaam ilmihii faraha badnay ag dhoobnayna waa canug kasta oo maata cala alfitra diinta islaamka ku dhintay rasuulka waxaa la weydiiyey sal ll slam ilmaha gaalada mushrikiinta riwaayada qaar waxay leeyihiin ayugay kamid yihiin qaarna waxay leeyihiin ilaah baa garanaya waxay camal fali lahaayeen salawaatu llahi wasalaamu caleyh waxaa rasuulka la weydiiyey dadka qaarna ayuu weydiiyey ka qurxoonaa qaarna ka xumaa ee lagu riday webiga ee ka soo baxay iyagoo qurux badan waxau yihi sala allahu alay sl waxaa loogu jawaabay waa qawmun khaladuu camalan saalixan wa aakhara sayi-a waa dad isku dhex daray camal wanaagsan iyo camal xun buu yihi salawaatu llahi wasalaamu caleyh saasaa lagu yihi camal wanaagsan iyo camal xun bay isku dheheen marka jirkooda qaarna waa qurxoonaa qaarna waa fool xumaa xaaladii markay sida noqotay webi ayaa jira lagu rido dadka noocaasa webigaasaa lagu riday khalaas waa la isiimiyey marka kulligood waa loo dhaafa qabalkay galeen waa laga saamaxay marka rasuulku barsaka cadaabka ka jira saasa u cabiray salawaatu llahi wasalaamu caleyh axadkii muslimahow doonaya inuu barsaka cadaabkiisa ka badbaado iyo sidada ka dambaydo ilaa qiyaamo iyo wixii ka dambeeyaba way ku sugayaane rabbiga ku khalqay ka cabso oo ninna ha u danaynin ee naftaada u danayn diinta barashadeeda nin ha ugu danaynin ee adigu baro rasuulka raacidiisa sal ll slam nin ha ugu danaynin ee adigu raac sala allahu alay wasalam xaggay ka dhacday iyo waxbaa la sheegay inta iska dayin rabbigii nafta ku geliyey oo rixim hooye kaa soo saaray oo caqliga iyo uwada ku yeelay maxuu kaaga raali noqonaya isweydii adugu isweydii ku dadaal la imaad taas ayaa adiga danta kugu jirtaa oo haddaad caqli leedahay haddana caqligayna 24 kasta waxaan ugu jira oo aan ku jirnaa saasaa la yeelay waxbaa wax laga sheegay jabad baa xagga ka baxday qolaa qabiilka naga cayday saasaa la weligiisaa ku jira aakhira iyo qabrigeeda ilooba ilaah u allah yihi subxaana watacala mar uga sheekeynay dadka xun alhaakum atakaasuru xataa zurtum lmaqaabir waxaa idin mashquuliyey oo yani aada idin wereersay takasur takaasurka waxaa la yidhaha fan
ayaa idin mas-uuliyey iyo anaa saatana xataa surtum almaqaabir laba macnaa lagu sheegay ilaa dadka qubuurta ku jira aad tirsateen anaa hebel iyo hebel naga dhintay ama ma ahane waxaa loola jeedaa adduunka faankiisa iyo xoola tabac iyo anaa kida ayaa idin mas-uulisay ilaa aad ka geeriyoosan oo qubuur ka gateen adinku waxba camala samaysanin saasay xaaladii ku dhamaatay marka ikhwaani rabbi aan ka badano subxaanahu watacaala oo aan garanno arrintaas jirtaa sida ay tahay camalkeennana aan mid saalixa ka dhigno dad munaafiqiina oo diinta alla ku cayaara oo wixii rabbi yani ka mamnuucay la yimaado yaana noqonin aan noqono dad sulaxaa saalixna waxaa la yidhaahdaa axadkii xaqa rabbi guta addoommada ilaahay xaqa ay ku leeyihiinna ilaaliya qof walbow garo inuu allah qur'aanka ku yidhi man camila saalixan min dakarin aw unsa دين العزة والحرية قادم تبيت والدكتور قوية قادم دين العزة والحرية قادم تبيت والدكتور قوية قادم جيل جبار جبار جيل يتحدى الأبطال جيل جبار جبار جيل يتحدى الأبطال قادم 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 جيل إسلامي المبدأ والأفكار سهم لا يرضى بالذل أو بالعار جيل إسلامي المبدأ والأفكار سهم لا يرضى بالذل أو بالعار الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوال ولا ليال مؤتمر كنيشنات إسلامي توفيق إسلامي سنتر نوسو قبل قابسي maalintii labaad weeyaan waana muxaadaradii saddexaad waxayna ciwaankeedu tahay taariikh al-andalus waxaan inoo soo jeedin doonaa شيخنا الشيخ مصطفى حاج إسماعيل فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني إخوتي في العقيدة عموما تاريخ مركز لقوى الرميه faa'iidada koowaad ee taariikhoodu leedahay waxa weeyaan waa lilcibra waa in lagu waayo arko sida awgeed baynu odhan karnaa qur-aanka kariimka ah in thuluthba ku dhodhow ama 3 meeloodoo meel ku dhodhow ayaa qisas ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qiso kaga warramaya naxnu naqusu calayka axsana alqasasi bima awxaynaa ilayk لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سدراد الله سبحانه وتعالى دول بدن ayuu qur-aanka kaga warramayaa qiso qisada qur-aankuna asbaabo badan bay u soo aroortaa waxaase ugu muhiimsan oo ilaahay subxaana watacaala uu qur-aanka ku tilmaamaya qisaska in laynoogu sheegayo inaynu ku tafakurno ama ku waayo aragno inaynu ka qaadano cibar inay noqoto wax lagu waayo arko عبرة لأولي الألباب لعلهم يتفكرون markaynu u fiirsano markaa qisadu sideedaba waxa ugu quruxda badan lee ku jira waxa weeyaan
in lagu qiyaasto waktiga aada nooshay iyo duruufta aad ku nooshay adigoo ka qiyaas qaadanaya umamkii hore iyo wixii ku dhacay noocan adigu aada u nooshay wixii la mid ah waayo basharku sunna ilaahay u dejiyey subxaana watacaala joogto ah sunnadaasi waa sunno haabita bay culamadu ku tilmaamaan haddaad samaysana inaad same helayso haddaad xumo samaysana inaad xumo helayso maadaama ay caynkaasi tahay qisasku waxay u baahan yihiin in badan inaynu u fiirsano qur-aankana in badan baa ilaahay subxaana watacaala kaga warramay qiso nebi qiso fircown iyo gaal qiso wadaada inxiraafay qiso yacni kullu shay baab kastoo aad qiso ka egto qur-aanku wuu ka warramaya taasi waxa ay tilmaamaysaa inaynu u baahanay qiso dhammaanteedba inagoo laakiin isdu taagayna mawaadic alcibar meelaha cibradu ku jirto ee u baahan in inta badan la eego amase la isdul taago waxaa kaloo mudan oo qur-aanka ilaahay subxaana watacaala in badan inoogu tilmaamaya inaynu umamkii inaga horeeyey taarikhdooda daraasayno waxay dhahdaan casri kastoo la joogaa wuxuu u badan yahay cusurta dambe waa طabca jadiida likitaabin qadiim bay yidhahdaan haddaad taarikhda hadii u fiirsato baalal lamida kan aad nooshahay unbaad arkaysaa oo si kastoo aad u qiyaasto ama aad u qiimayso lamida idan bay yidhahdaan waa طabco jadiida kitaab qadiimo hore loo soo maray waayo dunida hore usoo mareen dad taalixiina iyo dad saalixiina dad xunxun dad wanaagsan nooc kasta hore usoo mareen sidaa awgeed waxay u muuqanaysaa taariikhduba inay u eg tahay طabca kitaab qadiimo hore u jiray ilaahina subxaana watacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya ina leeyahay qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lardi fanduruu ilahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala idinka hortiin waxaa tegey sunan baa dhulka tegey ee fasiruu fi lard dhulka socda baa la yidhi oo fanduruu kayfa kana caaqibatu lmukadibiin fasiruu fi lardi qur-aanka intay ku soo aroortay haddaad u fiirsato aad baad u tacajubaysaa aayaad aada u tiro badan baa ilaahay subxaana watacaala kaga warramaya qul siruu fi lardi uma nduruu kayfa kana caaqibatu lmukadibiin afalam yasiruu fi lardi fatakuna lahum quluub yacqiluuna biha aw aadaanu yasmacuuna biha fainaha la tacma absar walakin tacma alquluub alati fi sudur qul siruu fi lardi fanduruu kayfa kana caaqibatu lmujrimiin أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني إلهي سبحانه وتعالى هدينا النصوص تكسو أررتي فسيروا في الأرض وقرى أيها كبضا إن محاضرة لغو أخريه وإلهي من إلهي هي قولدي دين كهر ريسيبا وقار ألا هلاقي وللكافرين أمثالها سيدا أوجد تاريخ الدراسة وباهنته دراسة aan tamatuc ahayn bay u baahan tahay daraaso aan ku raaxaysi qura ahayn ee ah in la isdul taago meelaha cibrada weyn laba u baahan tahay umamku xataa dadka ummiyiintii xataa umamka aan wax qorin inta badan iyo kuwa wax qorayn badan oo kamidiba calaamada jira ay taariikhda ku calaamadsadaan mesela waxa maahmaahda la yiraahdo waa dhacday qiso dhacday oo weer yar oo kooban lagu xifdiyay oo markastoo dhacda la mid ay timaadaba mahmahada la sheega waxa la yiraahdaa ninkan hebel waa aftahannimadu waa maxay waa wadciga hadda yaala ayuu wuxuu ga qiyaas qaadanayaa dhacdo hore oo dhacday oo ku jaan go'an sida daraadeed ba mahmahda gabigeeduba waa calaamad taariikhda la ka hayso waxa ay faa'iidana ugu weyn waxa weeyaan bi'adi qof kale ku xidhnaaba laga saarayo bi'a kale la geeya dad kale u bartaa jamaac kale u raaca si kale u fakaraa wixii uu ka sheekeyn jiray waxaan ahayn buu ka sheekeeyaa time table-kiisii baa la bedela qofku inuu time table-kiisa iyo nidaamkiisa oo dhan bedela wax fudud maaha markay qofkan kaxeeyaan waxay bedelaan nidaamkiisii oo dhan time table-kiisii iyo siduu u fakerayay waktigu toosiyey waktigu wax cunayey cidduu la sheekaysanayay cidduu wixiiba 40 kan casho cid kalaad caalam kalaad gashay oo ka gedisan caalamkii adiga iyo asxaabtaa ku noolayday
waxaan leeyahay biicada inaad bedeshaa aad bay muhiim u tahay. Greenland ka kaalay baan leeyahay maalin damba koob shaahna ka cabi ha marin ninka raba oo sala jooga ee raba inuu qaadka iska daayo. Anu Greenland waxaan u malaynayaa imika 5-6 sanadood ma arag bidhaanteeda dareenna ilama marin batnaa mana imanin. haddaad Greenland iska dayso waanad sooba ag marin waxaan isleeyahay waad ka badbaadaysaa oo ah inaad masaajida shaqadaada markaad ka timaado masaajida tag markaad ka tagto gurigaagii qabo iyo xaafadaadii meeshaas lagu iibiyey asxaabtaa joogta iyo inta joogtaba iska daa. waa midda labaad ee ilaahay dartiisa iga daa. waxaad ogaatay inuu macsi yahay waa macsi. waxaad ogaatay inuu macsi yahay ilaahay dartiisa iga daa. ilaahay baa wax ka khayr badan kuugu bedelaya. ilaahayna waxaan ka baryaa adiga iyo inta kale saadiqiinta rabta inay iska daysaba in ilaahay subxaana watacaala ugu gargaaro waa iska daysaan waa dhibta in ilaahay bulshada ka fujiyo adiga iyo inta kaleba in alle subxaana watacaala idinka badbaadiyo. wallahu aclam. جزاك الله خيرا. محاضرتي يسألي كذا ليصلح ذا انت يا كسود وكبيرنا. قادم دين العزة والحرية قادم أبيت وفدت نار لا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أخواتي في الله مؤتمر كفاح إلا حالكم يحكى بدلان على حتى يغيروا ما بأنفسهم. محاضرتي في 7 تبانات وأنا متنقل لي قبلها مسلمات محاضرات وأنا بحني حالك إيا بين أبورك أيا وحالة ديارة شيخنا الفاضل الشيخ محمد عبد أمل. وإن شاء الله موضوع عناصرته حسن الله سنوى شافين بين بإذن الله تبارك وتعالى. وحاجة وصلنا ولا لها إن أي أدخل حسن بذل إنت المحاضرات عكا إله يتعب سبحانه وتعالى بوق أيها شيخنا بالتوفية شيخنا وبغيسته إلهنا نورنا سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا لو حميد دائما يا شيخه هي المحاضرة إنه ليس يتوري عن ولا عن كذا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوات الله سبحانه وتعالى أيام محدث كله أمانا أمان ضمان سيد هي محد كل جد إله بأسكال سبحانه وتعالى
waxyaalaha uu ilaahay ku ammaanan yahay ama ku mahadsanya waxaa ka mid a nicmooyinka faraha badan aan la tira koobi karin ee allah uu ina siiyey subxaanahu watacaala ama uu inoo galay. mawduuca darsigeena wixii ilahay naga waafajiyo aan ka dhigi doono insha allahu tacaala. sidii horeba loo sheegay waxa weeye xanta iyo been abuuradka. xanta iyo been abuuradku waxay ka dhacaan xubin ka mid ah xubnaha jidhka. xubinkaas waa xubinka marna haddii loo isticmaalo khayr wax badan soo hoyin karo ruuxa tari kara, wanaag weyn buu ku kasban karaa. haddii si xun loo isticmaalana ruuxa meel xun buu geyn karaa. saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa waa silaaxun duu xaddayn, waa mindi laba afle wey. haddaad khayrka ku goosatana way kuu goynaysaa, haddaad sharka ku goosatana sharka waa ku goynaysaa. kolba sood adigu isticmaasho wey. xubinkaasi waa xubinka la yidhaahdo carabka iyo afka. labada arrimood ba halkaasi ka dhacaan, waa been abuuradka iyo xanta labaduba. xubinku asal ahaantiisu waa nicmo ilaahay subxaana watacaala. waxaa yeelay allah subxaana watacaala ibni aadamka inuu siiyey carabka iyo hadalka iyo afka iyo bishimaha waa nicmo ilaahay subxaana watacaala bini aadamka siiyey wey. wuxuu rabuu ku cabaystaa oo ku sheegtaa. waxa qalbigaaga ku jira ee aada doonayso inaad sheegto waxa turjumaya oo cabaynaya ood ku cabaysanaysaa waa carabka iyo afka wey. sidaa daraaddeed ba allah subxaana watacaala isagoo arrintaa cad sheegaya ama tilmaamaya wuxuu yihi alraxmaanu callama alqur'an khalaqa alinsana callamahu lbayaan. ilahay insaankii buu abuuray wuxuuna baray cabaynta siduu wax u cabayn lahaa. sidee buu wax ku cabayn karaa? wuxuu wax ku cabayn karaa afka iyo carabka. hadduusan af lan ahayn carabna lahayn wuxuu rabo ma cabaysan karo, lamana fahmi karayo. nabiyaad rabtaa, macaanaad rabtaa, ma jiifaad rabtaa, ma cabsibaad kugu jirta, maxaad doonaysaa? waxa qalbigaaga ku jira wixii ka turjumi lahaa ee cabayn lahaa ma haysid. sidaas daraaddeed baa xubinka carabka iyo afka uu yahay nicmooyinka ilaahay bini aadamka uu siiyey iyo xubnaha uu ku abuuray xubnaha ugu qaalisan buu ka mid yahay. alam najcal lahu caynayn walisaanan washafatayn wahadaynaahu najdayn bu alle subxana watacaala. insaankan soomaanan laba indhood u yeelin, carab soomaanan u yeelin, laba bishimood soomaanan u yeelin. macnaheedu waxa weeyaan allah subxaana watacaala insaankan in uu bilaash u abuuray wax jira maaha. inuusan bilaash u abuurin oo ujeeddo ugu talagalay waxaa ku tusaya insaankan qaabku u abuuran yahay. indhaa loo yeelay, dhagaal loo yeelay, bishimaa loo yeelay, carab baa loo yeelay, qalbigaa la siiyey. xubnahan isa saaran iyo jidhkan sida qiimaha badan u dhisan ee isu dul saaran ee isugu habaysan bilaash ma ah. xikmad weyn baa ku jirta. sidaas daraaddeed xubinku waa xubin ka mida xubnaha ilaahay subxaana watacaala ina siiyey. xubnaha ugu qaalisan buu ka mid yahay. waa xubinka wax lagu cabaysto waxna lagu sheegto. nicamka ilaahay subxaana watacaala buu ka mid yahay. ayib, xubinkaas qaaliga ah ee alla ina siiyey subxaana watacaala nicmooyinkiisa waaweyna ka mid ah, haddii si wanaagsan loo isticmaalana wuxuu noqon karaa xubinka ugu qiimo badan xubnaha bini aadamka khayrka iyo wanaagga uu ku shaqaysto ama ku kasbado. oo tawxiidkii laa ilaaha ila allah carabkii afka ayuu ka dhacayaa. waana kelimada islaamka lagu soo galo, jannada lagu furto, khayr oo dhan lagu gaaro, shar oo dhan lagaga baxo. kelimadaasi carabkay ka dhacda. qalbiga carabka turjuma laa ilaaha ila allah
hal kelimo oo carabku sameeyey waa dhici karta inuu ruuxu ama naarta uu yani salkeeda 70 sano hoos u galo hal kelimo oo carab ka soo baxday hal kelimo oo carab ka soo baxdayna waxaa dhici karta ruuxu inuu ku helo darajooyin sare oo jannada saas daraaddeed baa nabigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh mid idin ka mid a hadal buu ku hadlayaa hadalka uu ku hadlayana muusan u fiirsanin kama fiirsanin muusan rogrogin kamuusan baaraan degin hadal buu si fudud isaga yidhi hadalkaasoo dembi oo khalad ah markaasuu ilaahay naarta alla uu dadka ku cadaabo ayuu kelimada darteed 70 sano ayuu naarta ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إخوتي في الله وحن إن شاء الله تعالى معناها هل كان مانتا عن سكولة كلوني إن أن مرلبات يقدم بينتي بسان رجينينه إن نوت زيادنا أن شعلنا إن شاء الله تعالى إن لقاء أما ماركتا كلا أن ليا لأنه فضيلة عمر فاروق لما كان محاضرة قيمة ونرجينا إن شاء الله تعالى إن أي مواضيع آدو تربضا ونرشي إذا كسابسا أي دوين دونتو محاضرة سعون كذن وحويان الولاء والبراء في الإسلام أيا هيل إيهو الله سينيا أولي لقدقنا يا إيو أيا سحرق الله جريا أما بنانك لقمريا إسلام كده حديثا وأرن آدي رنتي أوين أنا رجيني إن شاء الله تعالى إنك كقبضن دونتان في عمر فاروق وهري تعريفتي سماركا يعني عجلدي هوري أما ماركا يعني كل ماضي هوري أدنى كوش شيء مركب حويا أنكم هذا الكثير بدين إن شاء الله تعالى وحلينا فضيلة عمر فاروق كسر دو ماركا عتباهية وجزاك الله خيرا. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح للأمة وبين الحق وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وقد تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وقد قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن حدا حذوهم وسلك على طريقهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم المسلمين منها أيها الإخوة الكرام والأخوات الصالحات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين جل جلاله وعظم كماله وعز جاهه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سيدة أركب الغبطان الذين شاكا محمد الله معاشرته وحكو سابسنها الولاء والبراء الولاء والبراء waxaan jeclahay inaan uga hadlo sidaa soo socota marka hore si loo fahmo alwalaa walbaraa bal inaan tacriif iyo tilmaan ka bixiyo ka gadaalna inaan sheego mawqicuhu min addiin alwalaa walbaraa xagee diinta uga beegan yahay ma caqiidii asalku raacsan yahay mase axkaamta iyo furuucdu raacsan yahay mawqicuhu min addiin inaan idiin sheego marka saddexaad inaan taabto dhanayntuu mudnaa mawduucan iyo siduusan nasiibkiisii u helin dhanayntii uu mudnaa iyo daryeelidii iyo inuu ahmiyadii u lahaa uusan helin iyo wixii sababay ugu dambaystii 4 mitaal inaynu qaadano lilwalaa walbaraa dadkii ku dayda layna yiri inaynu 4 mitaal ka qaadano nabiyullaahi nuux calayhi salaam ahna shaykhu lambiyaai waalmursaliin inaynu mitaalka koobaad u qaadano ka labaadna inaynu u qaadano nabiyullaahi huud calayhi wacalaa jamiici alambiyaai asalaatu wasalaam misaalka saddexaad nabiyullaahi ibraahim oo aana nebiyaasha inoola sinayn awalan qiimigiisa wahaaniyana inteennaba ay waafaqsan tahay diintii nabiyullaahi ibraahim sida eebba u yihi subxaana uma awxaynaa ilayka an itabic millata ibraahima xaniifa amuu eebba u yihi subxaana wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj millata abiikum ibraahim markaa nabiyullaahi ibraahim ay diintiisii iyo teelis waafaqsan yihin inaynu misaalka afraad u qaadana nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam haddaba markaan bilaabo xibintii koobaad ee muxaadarada tacriifu alwalaa walbaraa waa 2 kelimo alwalaa oo kelimaa iyo walbaraatu oo kelimadii labaada kelimatu lwalaa markaan ka eegay kutubu luga 16 macnay ku timid 16 macno ayaa waluhu ku yimid 16 macno uma wada danlihin midkaynu u dan leenahay maanta aan ka hadlayno oo hal 16 kamida waxaa wey
الحب والمودة والنصرة والإكرام جعل على جعلاله هي كالجعل ولي جعل في كسي بدن داركي ودنها iyo gargaar oo hiil iyo hoo ah iyo darajayn iyo tixgelin ma kala foga macnuhu markii 16 macno la eegana inahaas isugu imaanaya alwalaa waxaa la yidhaahdaa jacayl wax la jeclaado iyo kalgacalo wax loo kalgacaloodo gargaar la gargaara hiil iyo hooda iyo darajayn wax la tixgeliyo la qiimeeyo intaa waa weli العزة والحرية سوف يعود والراية الإسلامية حتما ستسود دين العزة والحرية سوف يعود والراية الإسلامية حتما ستسود جيل يغلي كالبركان جيل يزحف كالنيران جيل يغلي كالبركان جيل يزحف كالنيران قادم دين العزة والحرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد sida walaaluhu qoondeeyeen waxaan ka warrami doonaa qisadii ku saabsiisanayd islaamnimadii salmaan alfarisiy abu cabdullah salmaan ibn lislaam ninkay culamaai taarikh ku tilmaamaan salmaan waa صaxaabi jaliila oo saxaabadii waaweyneyd ee nebiga ka mid ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaanu ka mid yahay saxaabadii cilmiga iyo zuhdiga ku caanbaxday waa nin saxaabiya oo raggii cilmiga ku caanbaxay ka mid ahaa isla markaana ka mid ahaa raggii zuhdiga ku caanbaxay waayo waa ninkii amiiru lmuslimiin laga dhigay inuu ka taliyo beershiyadii hore markay muslimiintu qabsadeen magaaladii madaa-in la odhan jiray isaga ayaa waali looga dhigay madaa-in waa magaalooyin yaryar oo boqoradii beershiye hore ay samaysteen oo iminka iska xaafadun dacalkeeda ku taalla magaaladan hadda baqdaad la yidhaahdo madaa-in markaa waa magaalo qusuur kala googo-ana 7 magaalo yarar oo isku naban qusuur kala googo-ana alqasri albaydaana uu ku yaalay gurigii caddaa guriga la odhan jiray ee looga talin jiray dowladdii bershiya dhulkaa markay muslimiintu qabsadeen waa ninkii loo dhiibay maca dalik waxaa la yidhaahdaa wuxuu diiday xataa meel la galo geed buu iska hoos harsan jiro markii dambe la yidhaha guri kuu dhisno ninkiibuu u yeedhay saxaabigee guriga dhisayo wuxuu yihi maxaad dhisi doontaa waxay ku yidhaahdeen mid haddaad istaagtana madaxaagu gaari doono hadaad iskala bixisana cagahaagu aanay in badan iyana gaari doonaan yacni koox yar uno aada hadsato halkaasuu nolosha ka joogay qisasku markay yihiin sheeko dhab ah oo dhacday way ka cibro badan yihiin waxyaabo badan oo kale bini aadamkana way kaga raad badan yihiin salmaan qisadiisan aynu ka warrami doona waa qiso tilmaamaysa qof bini aadamah oo xaq raadiyey inagu waxaynu naqaanaa oo maanta agteena ku caan ah safarada xoogsitaga ah in dunidao dhan loo meero halka u dambaysa iyo halka u horeysaba la maro safar xoogsitaga
inta hadhayna inay ku wareysato oo warka ugu quruxda badan le kaa maqlaan uu noqdo hebel wuu gala. laakiin waxaynu marka kan akhriyi doonaa safarkaa ka gedisan. safar uu safray nin qoys ladan ka dhashay oo hanti haystay oo mujtamaciisa ka tirsanaa, laakiin safarkiisa oo dhami uu ku salaysayay inuu xaq raadiyo, inuu xaq baadi doono. safarkiisa uu ku salaysan yahay. walidalik qisadatan waxaan jeclay inaanan riwaayaadka tirada badan lee taariikhtu soo arooriso soo qaadanin, ee aan soo qaato oo qura hal xadiis ama hal qiso oo sanadkeedu xasan yahay. yani imaamu axmed xadiidka uu soo saaray oo rijaalka sanadkaa ku jira dhammaantood rijaalu saxiix ba ay yihiin ilaa iyo ibnu isxaaq mooyaane rijaal hiqaat ay yihiin. ibnu isxaaqna uu rajul xasan lxadiida yahay. xadiidkaasi oo culamada xadiidku ay ku tilmaamaan inuu sanadkiisu xasan yahay. xadiidkaasi markaa wuxuu ku saabsiisayay waa salman alfaris iyo isagu iska waramaya, u waramaya saxaabi kale oo yar markaa cabdillaahi ibnu cabaas saxaabigii la odhan jiray buu u waramaya. waxaan uga waramaya taariikhdiisii nololeed ee xaqraadinta. cabdillaahi ibnu cabaas markuu xadiidka warinayo wuxuu leeyahay waxaan ka qaaday min fii afka salmaan baan xadiidka ka soo qaaday buu leeyahy. cid kale igama waramine salmaan laftiisa ayaa warka ii sheegay. dhacdada tan waxaynu ka fahmi doonaa marka haddii alla yidhaahdo inaanay wada sax ahayn in laga dhigo qofku inuu majbuur yaho aanu waxba haynin. qofku inay bii-ada uu ku nool yahay iyo duruufta ku weegaarsan, aabbiyo hooyaha dhalay iyo hidaha iyo tara cidduu ka tirsan yahay iyo caqligiisu intuu zakaagiisu gaadhsiisan yahay, intaasuun inay xukunto oo uu yahay munfacil, yacni qof isaga wax loo tilmaamo markaa aan ka dhex bixi karin inuu yahay. aynu tilmaamno insaanku hadduu niya saadiqa la yimaado, ikhlaasuu ku jiro, dhab ay ka tahay waxa kani uu raadceeyo inuu gaadhi karo, isagoo duruufta uu ku nooliyey iyo bii-ada uu ku nooliyey iyo waxoo dham ay dhanka kale taagan yihiin. waa xujada dadka caajisiinta ah, xujada tidhaahdo dee maxaa sameeya, duruuftaa sacab ahayd, meeshaan ku noolayn baa caynka ahayd, noloshaa caynka ahayd. nolosha caynkaasoo dhan waa la bedeli karaa hadday dhabkaa tahay. waa xujada dadka kusaale ah, dadka caajisiinta ah. waxaa mudan runtii inaan tilmaamo intaynan qisadaba bilaabin, sheekha la yidhahdo maxamed ratib anabulsi oo ka waramaya siirada saxaabiga kan ayaa wuxuu muqadamo ka dhigtay. sheekhaasi oo ka waramaya siirada saxaabiga kan ayaa wuxuu muqadamo uga dhiganaya markuu masaladaa ka waramayo. wuxuu leeyahay insaanku hadduu xidhxidho ay dhab ka tahay oo ay casiimadu jirto inuu xaqa gaadhi karo, aan misaal idin siiya buu yidhi. misaalkiisaasi wuxuu ku bixiyey runtii misaal maanta aada gariib dadkan maanta jooga ugu noqon karaa. wuxuu misaal u qaatay nin 55 jir ku soo gaadhay isagoo umiya, 55 sannadood ku soo gaadhay isagoo umiya, dabeetana go-aanka a qaatay inuu waxbarto, qoraal iyo kitaabo bilaabay, qur-aanka xifdigiisii ku xigsiiyey, sulamkii sharciga ee shareecada loo marayey maray, dabeetana noqday sheekhii masar ugu weynaa, sheikhul azhar masar ka noqday. waa nin 55 jir waxbarasho ku bilaabay, qoraal iyo akhris iyo qur-aan la xifdiyo, isla markaasi gaadhay inuu noqdo sheikhul azhar. 96 jir buu ku dhintay markii dambe. wuxuu leeyahay sheikhul azharkaasi min rajul laa yaktub walaa yaqra fii sini 55 ku gaadhay ayuu ahaa buu leeyahy. laakiin markuu go-aankan iyo casiimada tan qaatay wuxuu noqday inuu sheikhul azhar noqdo muddadaa yare kooban.
إلهنا وحينا تلمام يا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذا وحا آدو هبون إنaynu qisadatan u fiirsano. salmaan alfarasi radia allahu canhu wuxuu ku bilaabaya wuxuu leeyahay waxaan ahaa nin farisiya, farisigu waa persian irani, min ahli asbahan, magaalada asbahan la yidhaahdo ama gobolka asbahan la yidhaahdo u dhashay, tuulada jayun la yidhaahdaan ka imi buu leeyahy. tuulo jay ayuu xadiidkaasi tilmaamay. riwaayadka qaarkood baa jayaan sheegaya magaca, qaarkood alfaada, lakin waa lafdi farisiya. xadiidkan lakin xasanka ahi wuxuu ku tilmaamayaa jayun in tuulada la yidhaahdo. idan waa nin reer asbahana, reeraan ka tirsanaa, tuuladaasi ku dhashay. aabbahayna wuxuu ahaa buu yidhi dihqaanu qaryati, dihqaanka waxay yidhaahdaan odayga magaalada, cumdaha u ah, ninka dee hantida iyo maalka iyo maamuuska iyo diin iyo waxba looga dambeeyo ee magaalada odayga ka ah ayuu aabbahay ahaa. waxaa meeshan ka muuqata salmaan inuu nin meel fog ku dhashay yahay, jaziira alcarab meel ka fog inuu ku dhashay, inuu yahay nin ka dhashay usro ama qoom dabka caabuda. halkaa waxaynu ka dareemaynaa inuu yahay abcad insaan can ilxaq, inuu ka tirsan yihi dadba kii xaq ugu fogaa, nin dab caabudaya oo tuulo yaroo jayi la yidhaahdo ku dhashay oo beershiya dhexdeeda ku taalla. waxa kaloo uu sheeganayaa aabihii inuu dihqaan ahaa, macnaheedu waxa weeyaan nin reer ladan ka dhashay inuu yahay. reer ladan markuu qofku ka dhasho, abnaada dadka waxhaystaa ay dhalaan, waxay ku dawaqaan xoolaha iyo tumashada iyo magaca iyo maamuuska iyo waa qof mashquula buu noqdaa. qolada malaaxidadaaba waxay yidhaahdaan kuwa adduunka waaye aakhire ku warwareega bay yidhaahdaan. qolada malaaxidada ah markuu adduunka waaye bay yidhahdeen unbuu yidhahda aakhiraan raadacaynaya. yani waxa weeyaan qofka adduunka haysta waxa ku badan waxyaabaha qofka bini aadamkaa xaqa ka weeciya. qofkaasi waxba haysanini dee maba jiro wax badan oo xaqa ka weeciya. waxaa ka muuqata salmaan alfarisi inuu ka dhashay qoys ladan, laakiin uu xaq raadinayay. qur-aanku dad badan oo qoysas ladan ka dhashay oo xaq raadiyey oo gododgalu ka waramay. faawu ila lkahfi yanshur lakum rabukum min raxmatih wayuhayi lakum min amrikum mirfaqa. kuwii godka u hooyanaya asxaabu lkahfiba waxay culamaai taarikh tilmaamaan inay ahaayeen qoysaskii ladnaayo boqortooyada raggii ka tirsanaa inay ahaayeen. salmaan alfarisi wuxuu kaloo sheegay wakuntu axaba khalqi illaahi ilayh. guri ladana qura kamuu dhalane guri lagu jeceliyo ka dhashay. waxaan ahaa buu yidhi aabbahay miduu dadba u jecel yahay. ilmuhu wuxuu ariiq labaad ka fekeraa markaanay faamiliga isku fiicnayn, laakiin ninkani wuxuu leeyahy faamiligu waana ladnaa waana laygu jeclaa. sidaa daraaddeed waa waxyaabo wada tilmaamaya inay ariiq labaad inuu qofku ka fekeraa inaanay sokaynin. waxa kaloo uu sheeganaya uu leeyahy aabbahay jacaylku ijeclaana wuxuu gaadhsiiyey buu yihi inuu iila dhaqmo sidii inan yar oo jaariyada, oo xataa intuu ii cabsado mararka qaarkood uu guriga igu xidhaba, sida lay ilaalinayo lay koolkoolinayo gurigaaba marmar laygu xidhi jiray. taasina waxay keensatay buu leeyahy inaan diintayadii aada ugu dadaalo majuusinimada ahayd, dabcaabudka ahayd, ilaa yaan ka noqday buu yihi qatini naar. yani qatini naarku waa imaamkii oo kale, ninkan dabka hurinaya ee habeen iyo maalinba usoo jeeda ee caabidkeeda ee looga dambeeyo sheekhii diintaba ilaa aan ka soo baxay buu leeyahy. oo ninka aan ogolaanayn dabka kale inuu saacadba damo ayaa noqday buu leeyahy.
waxay sheegaysaa markaa majuusinimadiisii halka ay la gaadhay. kadib ayaa wuxuu leeyahay aabbahay baa maalin maalmaha ka mid ah, aabbahay wuxuu lahaa buu yihi dayca cadiima, xoolo weyn buu lahaa, xoolo badan. dabeetana maalin buu guri iyo dhismuu wuxuu kaga mashquulay xoolaha iyagii kale tirada badnaa. kadib ayuu aabihii wuxuu ku yidhi ya bunay inii qad shugiltu fi bunyaani hada alyawm can daycati fadhab faطalicha. aabba maanta waan xoolihii iyo arrimaheena maamulkoodii waa ka mashquuloo dhiskan baan ku mashquulaya, bal maanta bax buu yidhi oo waxaad isku daydaa inaad soo ilaaliso beeraheeni iyo xoolaheeni iyo wixeeni inaad soo eegeysto, bal maanta isku day. salmaan wuxuu leeyahay sababtaasaan gurigii kaga soo baxay, waxaanu ifaray bibacdi ma yuriid. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا ليال waxaan isku dayayaa inaan ka hadalno dariskaasi ku saabsiisan fawaa'ida ama fawaa'idka tarbawiga ah ama waxyaabaha laga faa'iideeyo laga qaadanayo hijradii nebi Muhammad salawaatu Allahi wa salaamuhu alayhi. ugu horeyn waxaan idin xasuusinayaa marka la yiraahdo nebi Muhammad baa laga waramayaa, macnaheedu waxa weeyaan acdamu shakhsiya taariikhiya fi العالم. taariikhda bini aadamka soo martay soona mari doonta qofkii bini aadamkii ugu weynaa taariikhdiisii qayb ka mid weeyaan. idan taariikh البشرية كلها أو nabigu tilmaamayo ana sayyidu waladu aadam wala fakhr, أنا أغير نبي آدم سيد كودي أي لغا ورميا. وحين كورمنا قف الله سبحانه وتعالى وقرآن كيس كنت المامي وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن ما أها قف عادية، ما أها تاريخ عادية. ولذلك نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه تاريخ دي سلغا ورما وحيوبا همتي إنه إن بدن لغا ورارعنه inaynu in badan hubinno iyadoo qasaska ama anbiya ha ahaadaan cidda laga warramay ama kuwa kale ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka ugu tilmaamay saddex faa'iido kala gedisan. laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى صدح دا ايضاد waxa uu ku tilmaamaya qisadu inay cibra u tahay wax lagu qiyaasto oo lagu jaangoysto inay tahay. waxa kale Allah tilmaamaya qisaska anbiyadu inay yihiin wax qalbiga lagu dajiyo. waxa kale Allah tilmaamaya subhanahu wa ta'ala qisadu inay tahay wax tafakkur iyo qofku inuu wax u fiirsado keena. haddii cumuuman qisaska bini aadamka iyo ambiyadu ay noocaasi yihiin fama baalukum biqisati muxammadin calayhi salaatu wasalaam. maxaad u malaynaysaa markuu warku yahay war ku saabsiisan nebi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, iyadoo uu nebigu kaa yahay ayaa mar labaad masaladaynu ka warramaynaa waxa weeyaan taariikhda muslimiinta dhacdadii ugu weynayd. waa masalada loo yaqaano hijrada. hijradu waxay culimadu yidhaahdaan waa dhacdada ugu weyn xilligii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, isagoo nebigu dagaalo galay, saraayaa diray, wax badan soo maray. haddana markay saxaabadu qaateen go-aankii ahaa inay taariikh sameeyaan, waxay taariikhda islaamiga u doorteen inay qaataan xadaskii hijriga ahaa.
dhacdadii hijrada dhacdadaasi oo ah dhacdadaynu maanta ka tirina taariikhda islaamiga ah 1427 baynu marinaynaa taariikhda islaamiga ee hijriga ee laga tiriyo laga soo bilaabo maalintaasi uu nebigu hijrooday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idan laba shay oo waaweyn baynu ka warramaynaa midi waxa weeyaan inuu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qisadu ku saabsan tahay ka labaadna waxa weeyaan inay tahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa taariikhda nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maadaama ay nebigana ku saabsan tahay dhacdooyinkii soo marayna tii u weynayd aynu ku tilmaamayno waa masalo u baahan in badan in la isdul taago wax badanna laga faa'iido taariikh alhijra culimada muslimiinta ah rag badan oo ka midi 3-4 kood baan arkay waxa ay si dhinac dhigaan hijradii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo xaadisat al-isra waa laba dhacdo isku dhadhowaa hijradu waxay ahayd socod nebigu uu socday oo la raadcaynayey oo la rabay in la dilo oo uu dhuumanayey oo uu god galay oo uu saxaaro lugeeyey oo uu dhul badan socday isra oo in yar ka horeysay al-isra wal-micraaj wuxuu ahaa nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ilaahay intuu ka kaxeeyey maka uu geeyey bayt alqudus oo qudus laga dheelmiyey oo samada la qabadsiiyey su-aasha isweydiinta le ay culimmadu isweydiiyeen marka waxay tahay hijradii maxaa ilaahay nebiga u siin waayey iyana buraaquu fuulo maxaa waxaanoo kadeeda loo mariyey ilan markii alla subxaana wa tacaala dheelminayaba intuu ka qaaday maka ayaa baytulqudus oo ka fog madiina in badan la geeyey haddana laga qaaday oo samada la qabadsiiyey haddana uu soo noqday habeen quru waxaa soo farsamaa soo qaftay habeen quru socodka intaa leeg soo maray hijradana dhowr iyo 10 maalmood buu lugeynayey oo la eryanayey oo uu godgelayey oo dhibtani haysatay culimmadu waxay yidhaahdaan waa maxay labada xaadiso maxaa tasawurku wuxuu keensanayaa nebi maxamed oo fakanaya ma markana buraaq la siiyo uu fuulo uu ka boodo uu maka dabeetana saacada kadib uu tago madiina waxay yidhaahdaan culimmadu markay masaladan ka warramayaan xaadisatu lisraa oo nebiga rafiiqiisa u ahaa jibriil buraaqna uu saaraa isheedu intay qabato mar qura booda waxay ahayd bay yidhaahdaan rixlatu tashriifin wa taqdiirin wa takriim waxay ahayd bay yidhaahdaan safar uu alle subxaanahu wa tacaala nebiga sharfayey oo la karaameeyey waxay ahayd safar la qabadsiiyey inuu soo arko min aayaati rabbina alkubra aayaadka alle subxaanahu wa tacaala ee waaweyn inuu soo arko waxay ahayd safar ilaahay uu qalbigiisa dejinayey waxay ka mid ahayd khusuusiyaadkii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu gaarka ku ahaa waxyaabihii uu gaarka ku ahaa waa waxaan la rajaynayn qofnaba inuu helo